بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردد قيمها بدن آدي أدوان سلامية إن شاء الله وحينو سي ودن دونا كورس كان إبديمولوجيا ما أنت نحن قادم دونا chapter كي لبات chapter كلاودو حلو يغانا disease causation ووحيالها الصابوة أما كينا حنونك disease marka waa xanuunka ama cudurka causation oo waxyaalaha keena marka sida ogtaan xanuun waxa keeni kara labo waxyaalaha marka xanuun aan leenahay waxa keena waxa way labo baa keeni kara waanaga historical background ki epidemiology ku soo dhiganay in la soo iqtiraacay dhakhtarba midba waxa uu keenay marka fikirka ahaa in la isku beego xanuunka iyo wixii keenay marka dhakhtarkii iqtiraacay hadii ay soo joogno marka wasiidin lahayn in way xanuunka waxa keeni kara laba qaab ay ku dhici karayaan mid waxa way qaab ah primary cause waa wax wixii keenay la garanay sida markaan ka hadlayno kaleeto TB ama cudurka qaaxada ama TB sanbabood markaan leenahay waxa keena mycobacterium tuberculosis xaggan markaan leeyahay gonorrhea marka cudurka uu naqaan jabtiga oo kaleeto Neisseria gonorrhea sidan ay u leenahay marka waxa loo yaqaano meningitis Neisseria meningitis marka mid walba xanuunka iyo wixii keeno marka taa waxaan naqaan primary factor ama etiological agent talabaad waxa la keeni kara xanuun inuu dhaco waxa ka qayb qaadan kara risk factors ama predisposing factors ama aggravating factors waxa loo yaqaan dadkii u nuglaa xanuunka waxay ka qayb qaadanayaan xanuunka in uu markaa yada uu dhaco tusaale ahaan haddii carruur yar oo talaalka qaadan oo kale ay jirto oo jadeeco ay dilaacdo marka kuwa talaalka qaadan waxay yihiin risk factors haddii qof xanuunka qabo uu guriga joogo kuna aan talaalneen waxay ka qayb qaadanayaan kuna xanuunka u sii fido oo sii bato numberka sababtoo way u nugul yihiin risk factor ka laba loo qaybiyaa exposed iyo non exposed balira exposed ku xawee bukayaal xanuunka qabo cidii aan talaalneen oo markaa la kulantay exposed baa oran xanuunku soo gaaro way soo qaadan koona non exposed xanuunka halkan ka dilaacay cidii aan u dhaweyn hada ka soo qaada measles ka dilaacdo wax loo yaqaan ama jadeecada burco marka qofkii jooga magaalo kale ka baxsan oo aan talaalneen ilmahaasi marka waa non exposed group waa risk factor talaalka ma qabo laakiin si area ama goobta ma joogto insha Allah marka labadaas ayaan ka sheekeynayna qodob oo la qaybiyo marka labaad waxaan ka hadli doonaa epidemiological triangle shaxda saddex geesoodka epidemiology taasoo markaas aan ka hadlayno agent wixii xanuunka keenay environment-iga iyo bay'ada ama deegaanka u fududeynay iyo host iyo qofka xanuunka markaa qaaday host wuxuu noqon karaa markaa qofkii animalki marka wuxuu noqon karaa human being animal marka wuxuu doon noqon karaa cid u nugul marka xanuunka qaada environment waa deegaanka isku xiray oo markaasi haddii xanuunka airborne disease agentigi haddii ahayd mycobacterium TB environment wuxuu noqonayaa marka gurigii ama bay'ada ama meeshii marka haddii environment-igaasi uu guriga ventilation wax lahayn wuxuu fududeynaa ama ka qayb qaadan inay sii fido wax loo yaqaano marka uu sii fido marka xanuunka kan baa qofacay ama neesaday qolkii ventilation ma laha kii kale uu soo galay wax protective mechanism ma xidhna kadibna uu qaadi karaa marka qofka hadii uu nugul yahay oo talaali waxa toona uu ka qabay si kala duwan agentiga waxa ka soo qaad waxa weeye marka waxaan oran karnaa plasmodium ama waxaan ka mosquito kaneecada environment hadii biyo meel deegaankii hadii biyo meel fadhiyaan stagnant water biyo ay fadhiyaan kaneecada way soo duulaysaa biyahan ayaa waxay ka qayb qaadan marka beedkii wixii marka breeding sites kana sameeyay biyihii beedkii meelaha soo quudanaysay kadibna caawadan qofkii marka hoostiga way qaniinaysaa marka environment waxyaalaha isku xiri karay insha Allah soo u eegi doonaa markaasi waxaan u qaymin doonaa marka dhowr nooc naftirkooda agentigiisan qayb kala duwan si eegi doonaa physically waxyaalaha muuqdaan biological marka insha Allah ashirkeena maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa waxyaalaha ka keeni kara ama sabab xanuunka okay
concepts of disease occurrence concepts marka fikradaha of disease xanuunka occurrence dhicitaankiisa marka fikrad ku saabsan ama fikrado ku saabsan qaabka ama marka iyada habka uu xanuunka u dhaco ayaan eegi doonaa marka disease occurrence xanuunka marka iyada qaabka uu dhacayo marka disease marka xanuunka occurrence waa dhicitaanka xanuunka marka fikrado ku saabsan qaabka ama habka uu xanuunka u dhacayo okay a critical premise of epidemiology markaan leenahay waxa a critical premise oo waxyaalaha inta badan ugu dhibka badan fikradaha ugu adag ama ugu dhibka badan waxa weeye epidemiology markaan sheegana is that disease marka xanuunka and other healthy events marka xanuunka iyo waxyaalaha kale ee la halmaala ama la xiriiro marka caafimaadka sida dhaawaca marka injuries oo kale marka ama xabad ha noqoto ama jabniin ha noqdo waxyaalahaas oo kale waxaan healthy events oranana horena uga soo hadalnay other healthy related events bandne marka xanuunka iyo waxyaalaha kale ee marka caafimaad darrada keeni karaya do not occur iskagama dhacaan marka randomly in a population marka bulshada ama mujtamaca xanuunka iskagama dhaco randomly marka by chance marka fursad qofkan maanta ku dhacday kada ebri ku dhac marka ma aha waa inaga soo hadalnay epidemiology marka ka soo hadlaynay disease marka xanuun marka ka hadlaynay inuusan iskaga dhicin randomly marka baqta nasiib ee laakiin uu leeyahay causative waxba xanuunka keeno oo soo waxaasna wax laga hortagi karay marka disease ama xanuunka waxaan soo sheegnay in niri waxa loo yaqaan by chance ama fursad xanuunka iskaga ma dhaco waxba keeno waxaasna wax laga qaban karay marka fikradda ugu adag ama idea critical premise marka critical idea of epidemiology waxa weeye marka fikradaha ugu adag ee epidemiology waxa weeye xanuun iyo waxyaalaha kale ee la halmaala ee xanuunka iskaga ma dhacaan marka bulshada dhexdeeda fursad ahaan but laakiin waxa more likely waxa aad loo jecel yahay ama la rumaysan yahay to occur in u dhacaan in some members of the population marka xanuunkaasi waxa aad ay u jecel lahay oo marka aad loo huba in qaybo bulshada kamid ah oo xanuunka ku dhaco marka loo eega adadan adas marka kuwa kale loo eega qaybo kamid ah marka xubno bulshada ka tirsan inuu xanuunka uu ku dhaco because maxaa yeelay of risk factors waxaa jira dad u nugul marka xanuunka waxaan leenahay qaybo bulshada kamid ah ayaa waxa aad loo filay ama la jecel yahay ama la rumaysan yahay inuu ku dhaco marka kuwa kale loo eega dadkaasna waxa weeye dad ah risk factors marka xanuunka u nugul that may not be distributed randomly in population dadkaasna si marka by chance ee bulshada iskaga ma dhex filaqsan okay as I noted earlier sidaan hore u soo sheegnay one important use of epidemiology mid kamid ah kuwa la isticmaalo ama ugu muhiimsan epidemiology waxa weeye as I noted earlier sidaan hore u soo sheegnay markaan leenahay chapterkeena koowaad qaybta ugu dambeysay uses of epidemiology waxaan soo sheegnay 7 qodob ah ayaan soo sheegnay marka casharkeena uu isku xiray introduction soo qaadanay epidemiology disease causation ba ku xiga marka sidaan hore u soo sheegnay mid kamid ah kuwa ugu muhiimsan epidemiology ee la isticmaalo ayaa wuxuu ahaa is to identify waa qodobka waliba saddexaad buu hawaan filayaa is to identify inaan cadeeno ama garano the factors marka shayadki that plays some members at great risk than others marka waxaan niri inay cadeeno ama loogaado qaybo kamid ah meelo kamid ah bulshada waxa jira marka shayad waxa jira marka factors ama shayad ku dhex jiro ama qaybo kamid ah bulshada kuwaas oo aad ugu sii nugul xanuunka marka loo eego kuwa kale waa naga niri inaan survey la qaado dadka xanuunka u nugul soo qabto dadkaasi oo hodhowta marka iyada ah wax laga qaban karaya marka okay disease causation hadaba maxaa lagu qeexaa waxyaalaha xanuunka keena disease causation waxyaalaha xanuunka sababa marka cause of disease baa la oran karaya cause of disease waxa xanuunka keena cause of disease wuxuu noqon karaa an event wuxuu noqon karaa marka dhacdo condition xaalad ama characteristic ama sifo or combination ama waxan oo dhan isku tagay of these factors marka shayadkaasi which kaasoo plays ka ciyaaro an important role door muhiim ah in producing ay soo saaraan the disease xanuunka marka disease causation waxaan naqaanaa wuxuu noqon karaa shay ama marka iyada event marka la dhacdo ama xaalad wuxuu noqon karaa marka shay ama xaalad ama sifo ama waxyaalaha oo dhan oo isku tagay ayaa lagu qeexi karayaa kuwaasoo marka ama these factors marka shayadkan marka kuwaan soo sheegnay kuwaasoo door muhiim ah ka ciyaara inay xanuunka ay soo saaraan inay xanuunka ay keenaan okay
Disease causation can be classified waxyaalaha xanuunkan waxaan u qaybin karnaa into two markaa laba qaybood. waxyaalaha sababa ama keena xanuunku waxaynu u qaybin karnaa laba madax ama laba qaybood oo waaweyn. qaybta koowaad waxaynu u naqaanaa primary cause. waxaa la yidhahdaa maxay primary causes ama marka iyada waxay u naqaanaa waxyaalaha koowaad ee xanuunka keeno ama sababa xanuunada. primary markaan leyn waa maxay marka waxyaalaha koowaad ee keeni karaya xanuun. these kuwani are the factors waa shayadka which kaasoo unnecessary markaa daruuri u ah ama muhiim u ah for a disease xanuun to occur inuu dhaco. primary cause waxaa weeye waa shayad kuwaasoo shayadaasi muhiim ama markaa daruuri ama laga maarmaan u ah in uu dhaco xanuun. in whose absence hadday ka maqan yihiin meesha maqnaanshiyahoodana the disease xanuunka will not occur xanuun iskama dhacayo. marka waxaa primary cause-ka oo waxa koowaad ee xanuunka keenaya hadduu shaygaas ama waxaas uu jiro xanuun uu dhacayaa oo waxa muhiimka ama laga maarmaanka u ah inuu xanuun dhaco hadduu meesha uu ka maqan yahay ma dhacaya. tusaale ahaan hadda coronavirus ayaa jira haddii viruskii keenaya xanuunkan uu markaa magaalada uu ku jiro xanuunka uu dhacaya waa inagana leh qof baa kasoo degaya diyaaradda ee naga karantiil oo eega yacni qofkaas haddii lagu soo dhex sidaayo xanuunka uu dhacaya. haddii uu inaga maqan yahay viruska uu halkiisa ku egyahayna waxa way xanuun ma dhacaya markaa. I hope in la fahmo markaa. COVID-19 can happen only marka COVID-19 wuxuu dhici karayaa kaliya haddii exposed la helo markaa qof xanuunka qaba uu inoo yimaado. okay the term ereyga etiologic agent ereyga marka etiologic agentiga marka waa etiology waa wax xanuunka keenaya marka shayga xanuunka keenayo can be used waxaan isticmaalnaa etiologic agentiga can be used waxaan isticmaalnaa instead of halkan isticmaali lahayn primary cause halkii primary cause marka etiological agent waan isticmaalnaa halkii primary cause waan isticmaalnaa. bug badan oo caafimaadka qaybo badan oo kamid ah ayaa waxay qoraan ama inoo la eegaa etiology hadda sida xanuunada kale marka communicable iska dhiganaysaan kaleeto etiology-ga marka leedahay halka ku qoran waxa weeye marka waa xanuunka keenay marka halka marka etiologic agent marka the term ereyga etiologic agentiga can be used waxaan isticmaali karnaa instead of halkii primary cause for infectious cause of disease. waxyaalaha marka xanuunada faafo keeno ama sababo waxaa had iyo jeer u adeegsanaa etiological agent halkii primary cause ka isticmaal lahayn. primary cause ka isticmaal lahayn waxaan isticmaalnaa etiology for infectious marka xanuunada faafa ama la isu gudbiyo ama la kala qaado cause of disease ee xanuunka keena marka jeermisada infectious marka ka hadlayna waxaan ka hadlaynaa germs. xanuun sidiisa disease markaan leenahay waxaa loo qaybiyaa labo organic iyo inorganic. wixii organic marka had iyo jeer uu sababo waxa weeye oo wixii causekiisa la garanayo. inorganic waxaan causekiisa aan la garanin. organiga marka laba u sii qaybnayo communicable and non communicable xanuunada faafa ama la isqaatiyo iyo non communicable iyo xanuunada aan faafin ama la isqaatiyo. marka communicable disease kuwan leenahay infectious ba iyaga la yiraahdaa infectious disease communicable disease marka iyaga microorganisms germs ba keena sida bacteria virus fungus parasite iyo prions marka ku doona ayaa keena. for example streptococcus pneumoniae bacteria loo yaqaan streptococcus pneumonia waxay streptococcus marka waa gram positive bacteria. strepto marka la waa chain coccus marka waa goowaabin ama spherical marka waxa weeye waa bacteria keento ama sababto waxa loo yaqaan ofka marka pneumonia keento. is the primary cause ayaan oran karnaa marka streptococcus pneumonia waa primary cause-ka ama etiologic agentiga ama waxa ugu horeeya keena ama shayga keeno community acquired pneumonia. ofka bulshada dhexdeeda laga qaado bulshada dhexdeeda marka community waa bulshada acquired marka waa ka qaadis pneumonia marka waa ofka laga qaado bulshada dhexdeeda marka bacteria keento. I hope in la fahmay marka primary cause these are the factors which are necessary for disease to occur. marka primary cause waa shayadka ama marka iyada waxyaalaha daruuriga ama muhiimka oo inuu xanuun dhaco. haddii uu meesha ka maqan yahay in whose absence hadduu meesha ka maqan yahay the disease will not occur xanuunka ma dhacayo. halkii ereyga marka the term ereyga etiological agent
waxaan isticmaalnaa halkan ka isticmaalnaa cause marka primary cause xanuunada faafa markan ka hadlayno tusaalahan hadaan soo qaadan Streptococcus pneumoniada waxa weeye waa bacteria keenta marka oofka waliba oofkaas oo laga dhex qaado bulshada dhexdeeda okay secondly risk factors waa dadka marka u nugla xanuunka oo dadka xanuunka u nugul marka waxaan u naqaanaa dadkan waxa la yiraahdaa contributing waa ka qayb qaatayaal predisposing waa dadku xanuunka marka ku soo ifbaxaya aggravating factors oo xeelaha xanuunka sii xumeynaya marka khatar sii gelinaya marka risk factorska these are not necessary kuwani are not necessary kuwani marka muhiim ah marka daruuri uma aha cause of disease inuu xanuun u dhaco iyaga kuwani ahmiyad badan uma laha inuu xanuun dhaco but laakiin they are important wax aad muhiim ugu yihiin for a disease to occur inuu xanuun dhaco marka iyaga xanuun toos uma keenan laakiin xanuunka inuu dhaco ay aad muhiim ugu yihiin oo ka qayb qaataan marka iyaga sidoo xanuun ma keenan waa qof xanuunku nugul xanuun ma keeni kare laakiin wuxuu qayb ka yahay xanuunka inuu sii bifido ama uu sii baa okay marka risk factor waxaan u qaybinaa labo exposed group kuwa xanuunkii dadkii xanuunka qaba la joogay iyo non exposed group iyo kuwa aan la joogin a factor shayga associated lala xiriiriyo with an increased occurrence of disease inuu marka waxaa jira factor lala xiriiriyo inuu kor u qaado inuu kordhiyo xanuunka inuu dhaco a factor shayga associated lala xiriiriyo with an increased inuu kordho occurrence dhicitaanka of disease xanuun is waxaan u naqaanaa risk factor for the exposed group marka factorka ama marka waxa loo yaqaan exposed group waxa weeye dadka xanuunka qabay la joogay marka kuwaasi xanuunka inuu dhaco kor bay u sii qaadeen kuwii dadka xanuunka qabay ay la joogaan wax talaal iyo difaac wax tan kama haystaan marka kuwii xanuunka inuu dhaco ayay ka sii qayb qaataan marka iyada oo risk factorka loo yaqaan exposed group kuwa labaad a factor associated marka factorka ama shay ama marka shayga la xiriiriyo with decrease in hoos u dhigo occurrence xanuunka of disease waxa weeye dhicitaanka xanuunka waa risk factorka qofka ah non exposed group qofkii uu u nugul yahay xanuunka laakiin environment ama area ma joogo ka maqay marka adi waa caws dab lagu qabtay cawskaas de koo kale u sii dhow yihiin wuu sii soconaya gubashada haddii laakiin uu kala fog yahay waxa weeye halkaas uu gaabka u dab ku istaagaya marka risk factors could not be related risk factors could be related risk factorka had iyo jeer wuxuu la xiriiraa ama la xiriir hoose la leeyahay agentiga wixii xanuunka keenay hoostiga marka qofka iyo environmentiga deegaanka risk factorska could be related waxay xiriir la leeyihiin to the agent marka shayga wixii xanuunka keenay iyo hoostiga qofka iyo environmentiga iyo marka deegaanka ama bay'ada okay etiology of disease markan ka hadlayno waxa xanuunka keeno the etiology of disease is the sum total marka waa wadarta guud for all these factors marka factoradan labadan shay oo la isku daray marka etiology xanuun waxa keeni karaya isugeynta la isugeeyo dhammaan marka shayadkan soo sheegno ah primary cause iyo risk factorka labada marka la isugeeyo waxa loo yaqaanaa etiology of disease waxa xanuunka keenay marka is the sum waxa wadarta total marka sum total waa wadarta guud isugeynta guud of all these factors marka shayadkan primary cause and risk factors marka waxa xanuunka keenay iyo wixii u nugleynaya marka which kaasoo contribute ka qayb qaadan karaya to the occurrence dhicitaanka of disease xanuun marka kuwan waxay ka wada qayb qaataan labadaba inuu xanuun uu dhaco it's the interaction waxa waa falgal ka dhaxdhacayo of the agent marka waxa xanuunka keenay hostiga qofka u nugla iyo environmentiga marka waa falgal ka dhaxdhaco agent iyo host iyo environment marka agent waa xanuunka keenay marka waa Streptococcus pneumoniae hostiga dan soo qaadana marka waxa immunocompromised patientski carruurta yar iyo dadka 60 ka weynaa iyo environment iyo marka iyo environment deegaanka ay ku noolaan marka guriga kaasoo wax ventilation aan lahayn oo kale which kaasoo determines go'aaminaya whether haddii or not misa disease xanuunka develops inuu qofka u qaado ama u dhaco marka saddexdan iyaga go'aaminayo whether if haddii or marka whether waxaan ka hadlaynaa marka waa if waa conditional la'alla marka if marka haddii or not misa disease develops inuu xanuun u dhaco this can be illustrated this marka kani can be illustrated waxaan ku muujin karnaa using inagoo isticmaalayno epidemiological triangle shaxda afrigeeska ee epidemiologiga ayaan saddexdan falgalkooda aynu ku muujin doonaa
this marka waa kana soo sheegay epidemiological triangle waxa weeye saddexdan marka waxa weeye shaxdan saddex goosoodka ah marka triangle-ka ah agent waa wixii xanuunka keenaya ama sababay environment waa deegaankii hostiga waa qofkii marka agentiga qof wixii xanuun keenaya iyo hostiga waxa isku xiraya waxa weeye waa deegaankii hadda ka soo qad coronavirus baan ka hadlayn waa viruska xanuun keenaya marka qofka xanuunka qabo ku jira waa kan marka kii kale hostigii marka qof kale u nuglaana waa kan marka haddii distancing markaan leenahay hadday mitir isku jirsadaan ama qofka kan protection u isticmaalaya marka xanuunka jeenka dhexdooda ka kala go'aya haddii laakiin waxa uu environmentiga iska ciriiri u yahay oo marka dadka meel ay ku wada sheekaystaan populationka iskugu yimaadaan waxa weeye meesha waxa jira si yar fudud qofka inuu ku qofac ama ku hindhiso ee marka qof kale uu soo gaaro sababta population numberka density ayaa badan marka in another way the epidemiological triangle marka shaxdan saddex goosadka epidemiologiga depicts waxayna tusinaysaa the relationship marka xiriirka among ka dhaxeeyo three key factors saddexdan shay in the occurrence of disease xanuunka dhicitaankiisa or injury ama dhaawac ama marka shaxdan saddex goosadka waxay inoo muujinaysaa ama inoo tusinaysaa xiriirka ka dhaxeeyo saddexdan shay ee marka ama dhicitaanka xanuun ama dhaawac okay aan saddex shay marka iyada aan soo qaadana mid waxa loo yaqaan an agent hadda waa maxay waa wax xanuun keenay an agent waxaan yiraahdaa is a factor waa shay whose presence kaasoo presence marka joogitaankiisa or absence maqnaanshihiisa marka haddii uu shaygaas uu joogo ama uu maqan hadduu fiirso agent waxaan naqanaa waa factorka kaasoo waxa weeye meesha joogo ama ka maqan access ama wuu batay ama deficit ama wuu yarahay ama waa maxay wuu yarahay is necessary waxay daruuri u tahay ama laga maarmaan u tahay for a particular disease marka xanuun qaas ah or injury to occur inuu ama dhaawac inuu dhaco marka waxa weeye agentiga haddii uu joogo ama meesha ka maqan yahay ama wuuba joogaaye xaddigiisa ayaa aad u badan infective dose markaan ka hadlayna waa tirada qofka xanuun ku sababi karto in uu qofka xanuun uu qaado waa tirada kugu sababi karto deficit haddii tiradaasi ay yar tahay marka excess inuu xaddigiisa soo bato oo deficit uu yari ama shayga presence uu joogo meesha shayga xanuunka keenay marka coronavirus oo kale ama absence uu ka maqan marka kaasa is unnecessary waxay muhiim u tahay for a particular disease xanuun qaas inuu dhaco ama wax loo yaqaan ama dhaawac uu dhaco okay environment hadda waa environment waxa weeye deegaanka includes waxa kamid ah ku jiro all external factors dhammaan waxyaalaha dibadda kaaga iman karaya adadan marka laga reebo agentiga shayga agentiga aan soo sheegnay marka laga reebo waxyaalaha kale oo dhanba ayaa waxa loo yaqaan environment dadkaasoo kan influence saameyn karaya health caafimaadka marka kaasoo caafimaadkaaga saameyn karaya environment waxa la yiraahdaa dhammaan wax kasta oo dibadda kaaga yimaado marka aan ka reebno oo laga reebo agentiga marka xanuunka wixii marka shayga xanuunka keena marka laga reebo kuwaasoo marka markan ka saarno inta kale waxa wax caafimaadkaaga saameyn karaya these factors marka shayaadkani are further categorized waxa si dheeraad ah loo sii qayb loo sii kooxeeya according to inaga u eegayno to whether they belong marka marba ka ay leeyihiin groupka ay ka tirsan ma social ba xagga marka bulshada ma physical ba xagga marka airti foodki waterki waxyaalahaas ba ama biological environment ama waxyaalaha kale ee noolaha germska u keeni karay okay the social environment markan ka hadlayno marka waxyaalaha arrimaha bulshada ku xiran deegaanka ku xiran marka sheeganay in composes waxa ku guda jira ama kamid ah broad range of factors shayad aad u fara xaddi aad u ballaaran marka factors marka shayad range broad marka xaddi aad u ballaaran ayaa ku jira marka groupkaasi wax badan baa qaybo badan ayaa kamid ah include ay kamid yihiin education marka aqoonta qofka aqoonta leh ee caafimaadka wax ka garanaya waxa weeye marka asagana waa qayb aqoonta ay ka qayb qaadan kartaa meelaha qaarada aqoon darrada waxaad ku arkaysaa waxa kamid ah qof baa face mask ayuu xiranaya face maskigi ma garanayo waxa loo isticmaalay qofku muxuu naqas iskugu dhajinaya marka yani face mask markaan leenahay oo qofka uu xiranayo uu sanki afka uu daboolanayo muxuu ka hortagaya iska ilaalinaya goorma soo xiranaya ma suuq la dhex wareegaya gloves buu qofka xiranaya
gloveskaas qaar xiran waxaad arkaysaa marka iyada qalin buu isticmaalaya wax kale kale uu taabanaya jirkiisu taabanaya hodhowt marka wixii infected ah ma ismoogo face maskiga 3 qof baa loogu talagalay inay xiran kareen qofka xanuunka qabo familigiisa qofka la jooga u adeegayay iyo qof shaqaale caafimaad saddexda baa xiran kareen saddexda ayaa xiran kareen marka waxyaalaha aqoonta darada waxaa ka mid ah waxaad arkaysaa meelaha qaar dad afkana xiran microphone iyo wax nooca sheer gareynaya gacanta isku dhiibay protection sheegay markaas okay marka education aqoonta waxay ka qayb qaadataa waa qayb muhiim ah unemployment waxyaalaha kale caafimaadka saameyn kara waxaa ka mid ah shaqo la'aanta marka stress iyo waxyaalo fara badan ayaa la xiriira culture regarding diet dhaqamada la xiriira xagga cunnada meelaha qaar waxa laga yaabaa hablo kale inay yiraahdaan waxaas hilibka noocaas ma cunno waxaas ma cunno marka meel caafimaad kaga taala ama aayad quraan ku soo degto leedahay marka hablaha beerka macno kaliya ma waxaalaas ma jiraan marka waxyaala dhaqamo la xiriira xagga cunnooyinka many other factors shayad fara badan baateen la xiriirto political xagga siyaasadda oo kaleeto legal sharciga economic dhaqaalaha economic waa very important markaan ka hadlayno waxa la xiriira marka xagga dhaqaalaha wax la xiriira waxyaala badan malnutrition kana nafaqo daradii ay la xiriiro qofka caafimaadkii in dhakhtar la geeyo oo kaleeto dhaqaalihi way ku xiran tahay waxyaala reer geesan marka burco ku dhacayadan oo kale ka mid tahay oo yiraahdaan qofka hadii burco hargeysa maxaa loogu diraa lacag baan lagu soo dirayn xagga laakiin marka hargeysa joogo waxa la oranay qof kalkaas ku xanimay ama uu joogo noocaas communicationska ka muhiim ah marka xiriirkii transportationkii baa ka mid ah gaadiidkii health care system dhamaan marka qaabka systemka ama nidaamyada caafimaadka oo dhan baa ka mid ah okay physical environmental factors waxyaalaha kale ee physical environmental factors waxa ka mid ah climate cimilada kaleeto marka train oo kale ama soil ciid oo kaleeto pollutions marka diiqooyga waxyaalahaas oo dhan ayaa iyagana physical environments ka qayb qaadan kara biological environmental influence include waxyaalaha markaas iyada noolaha ay saameyn karayo qayb ku lahaan karaya caafimaadka waxa kamid ah factors waxyaalaha xanuunka qaada markaas iyada ayaa kamid ah sida mosquito oo kale sida testis fly oo marka flies oo kale daqusiga oo kale waxyaalaha la midka humans ba kamid dadka oo kale kamid ah waayo qofka xanuunka qaba qofka luusiqa human to human disease ba jira animals ayaa kamid ah markaas iyo xayawaanaadka serving as waxay u shaqeynayaan receiver of infection halka xanuunka u fadhiyay marka ishi uu xanuunka laga qaado marka receiver waa halka xanuunka uu marka u fadhiyay qofka xanuunka doo qabo dad kale marka receiver dad kale uu qaadsiin karaya marka factorkii waa sidoo kale marka kanicadii iyo duqsiga iyo waxyaalaha lamidka animals kan waa zoonotic disease maanta xayawaanadan xanuunada caalamka maanta aad loogu taaglayahay dhibaatooyinka faraha badan bulshada haysta waa xanuunada hadda inooga soo goosho ama inooga yimaado xayawaanaadka ayaa maanta marka 60 ama 40 sano ugu dambeeyay dunida waxyaalaha haysta waxay xanuun laga qaado xayawaanaadka AIDS oo kale daanyarada laga soo qaado waa ogtiin Ebola oo kale daanyarada laga soo qaado waa ogtiin mosquitoes waxay hadda feedmeerto oo kale geel oo kale waxyaala badan hadda waxa arkaysaa xanuuno badan ee bulshada maanta saameyn ku leh oo dhibaato fara badan ku haysto inay zoonotic disease waxyaala xanuunada xayawaanka laga qaado sida hadda anaga brucellosis oo kale taan haysato toxoplasma oo kale taa jirto marka wax dhamaan marka laga qaado marka looda iyo geeli ariga insha Allah taala marka cashirkeena chapterka labaad wuxuu ka hadlay marka disease causation-ka insha Allah waxaad garan weydaan waad ila soo socodsiineysaan waynu markaan isku soo noqonana waxaan soo diri doonaa markaasi revision han baan ku sameyn doonaa ama class activities insha Allah intaynu kulmayno marka week dambe waxaan rajaynayaa khayr fara badan teeda kale waxaan ogeysiinayaa arday ahaan week hore introduction-kii baan qaadanay qaybtiisa ku xigay week dhaweed baan qaadanay kana waa week saddexaad in qaadanayno marka ardayda qaar cashir raadinaya cashir aniga ma dhinay waxaan leeyahay haddii aad groupka maqnayna meelaha waad ka raadsan kartaa ardayda dhexdooda laakiin waxay xaqiina aanay ugu leeyihiin ma jirto. Assalaamu calaykum.